maxamed cabdullaahi faarax 3 sano ka hor ma awoodin inuu dhool cadeeyo markii ilkihii caanuga ah dhaceen kadib waxa uu soo baxay ilka yaryar oo ka gadisan kuwii dabiiciga ahaa haddaba maxamed uu ku fakarayo inuu iska bedelo ilkahaasi ayaa war uu ku farxo waxa uu sheegay dhakhtarkiisa Dr. Xabiib. bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa maxamed cabdullaahi faarax waxaan kamid ahaa bukaanadii uu daaweeyay Allah wax daaweeyay Dr. Xabiib waxa ii socday muddo 3 sano ilkaha daarkiisii natiijadooda oo laga soo bixiyay gudaha ilkii caanuga ahaa waxay dhaceen waqtigii Soomaalida caadiga ahaan waqti ka dambeeyay oo markii aan weynaaday markii ka bacdi waxa soo baxay ilka kale oo kuwa hadda maanta muuqato baloogareeyay oo yani u diiday soo baxaan saas awgeed 3 sano ka hor isbitaalkana imaaday Dr. Xabiib baa u imaaday waxaan rabay ilkahaas yaryarka ah in la ii buuxiyo oo la ii qurxiyo Dr. Xabiib markii uu yani saaray radio waxa meesha ka muuqata ilka gudaha ku dhex jira ilkaas wuxuu dhahaa waa muhiim in la soo bixiyo 3 sano iyo rafaad kadib iyo shaqo dheer hadda waxa ku guuleysanay ilkiyo nadiif ah inay soo baxaan dhool cadeyntu waa muhiim qofka bini'aadanka wax badan ay ka caawisaa marka waxa intaas kaga mahad celinayaa waajibaadkaas iyo wanaagaas ay qabtay daktarkeena weyn oo ah Dr. Xabiib شكرا جزيلا على هذه العمل جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم أنا الدكتور حبيب نادر طبيب الأسنان في المشفى الصومالي السوداني. waxaan ahay Dr. Xabiib ka shaqeynayay isbitaalka Soomaali Suudaani 6 sano ugu dambeysay maxamed cabdullaahi faarax wuxuu yimid 3 sano iyo bar ka hor isagoo ka cabanayay ilkaha qaybta kore waxaan u dirnay raajo kadib waxaan ogaanay in ilkihiisa ay ku jiraan cirka gudaha waxaan u sameynay qaliin si ay ilkihiisa dabiiciga ugu soo baxaan waxa ilaahay mahadiisa in 3 sano kadib maanta maxamed ay ilka qurux badan u soo baxeen